عمري لبدبا لكن dadka mawaaqiitaas nabiga calayhi salaatu wasalaam xuduudda iyo meelaha ay ku taalay ee inta ka shishaysa waxaa laga doonayaa mawaaqiita inay soo maraan inay ka soo xarmadaan inay maaragtay muxuu ahaye hadday mawaaqiidda ay maaragtay muxuu ahaye kusoo degi karaan ay ku dagaan ay ka qubaystaan isnadiifiyaan maaragtay si wanaagsan isu dhaashaan baraafuun ismariyaan kabacdina salaada ayaa wanaagsan baa la yidhaahdaa in maaragtay laga tukada jamaacada kolkii la tukada kadibna qofku labiskiisa uu qaato hadduu rag yahay wuxuu qaadanaya labadiisa ixraam buu qaadanayaa haddii uu rag yahay hadday haweeney tahayna xijaabkeeda oo kaamila ayay qaadanaysaa allahuma waxay iska ilaalinaysaa indha shareerka shanta mawaaqiit buu qofku walaalayaal uu kasoo xarmanayaa inta ka sokaysa mawaaqiitaana guryahooday ka xarmanayaan wabilaahi towfiiq inta aynaan u gudbin su-aasha afraad aynu sheekha weydiinayno axkaamta xajka ku saabsan waxaan jeclaan lahay mar labaad inaanu halkan mahad uga soo jeedino carwada almiftaax iyo maktabatu saxiifa iyo dukaanka shariif cali oo ah kuwii ka gutay ama lahaa fulinta barnaamijkan annagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryaynaa inuu u barakeeyo maalkooda cumrigoodana ilaahay u barakeeyo haddaynu dib ugu soo laabana su-aalihii sheekha aan weydiinaynay su-aasha afraad waxa weeye habka loo xiranayo ama anwaacda xajka anwaacul xajka inta uu ka kooban yahay ay dadku ay u kala xiran karaan inaad iyagana aada noo caddayso falyatafadal mashkuur habka loo xidho xajka ansaak baa la yidhaahdaa ama nusuk baa la yidhaahdaa waxa way saddex nooc baa ugu muhiimsan oo nabigana calayhi salaatu wasalaam waqtigiisii xasilay oo calayhi salaatu wasalaam iqraar uu ku sameeyey bad isagaba soo xajiyay calayhi salaatu wasalaam labada kalena sida caaisha radiallahu canha inoo warinayso waxayna kharajnaa maca nabiyi sala allahu calayhi wasalam famina man ahalla bilxaj ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بعمرة عليه الصلاة والسلام marka midka cumro soo xidhay bilaa xajka kaasi waxaa la tamatuc baa la yidhaahdaa waa mid kamida saddexda nusuk weeyaan midka bilaa la yidhaahdana waxa weeye qofku waa inuu soo niyoodo xaj iyo cumro inuu hal mar soo niyooda la yidhaahdaa waa kii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu soo xidhay taana waxaa shardi u ah qofku inuu xoolo soo kahayo xoolo ku qala maaragtay haddii uu la yimaado midda saddexaad waxa weeye qofku inuu xaj kaliya soo xidho saddexdaasa walaalayaal loo xidhaa qofku xaj kaliya inuu soo xidho iyo qofku inuu cumro soo xidho iyo isagoo doonaya markuu cumrada soo xidhanaya isagoo doonaya inuu xajiyo doonaya iyo qofku xaj iyo cumro wada socdo inuu soo xidho saddexdaasaa loo xidhaa marka qofkii xaj soo xidha sifada u xidhanayo waxaa weeye labayka allaahuma xaj ayuu odhanaya labayka allaahuma xaj ayuu odhanaya qofka soo xidhayna cumrana wuxuu odhanayaa labayka allaahuma cumratan mutamatican biha ila alxaj qofka soo xidhanaya qiiraan ah wuxuu labayka allaahuma xajan wa cumratan saddexdaasuu qofku soo xidhanaya haddii uu soo xidho waxa weeye qofku waxaa maxduur ka ah oo mamnuuc ka ah wax allaale iyo waxyaabo badan oo maxduuraadu diba ka sheegi doono haddii ilaah yidhaahdo wallahu aclam su-aasha shanaad ee aan sheekh ku weydiinayna waxay tahay kayfiyada ama qaabka cumrada loo gudanayo bal inaad ayagana caddayn ama sharaxaad naga siiso habka loo guta cumrada nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa inoo sheegay hooye alcumratu ila alcumrati kafaaratun lima baynahuma walxaju mabruuru laysa lahu jazaaun ila aljanna cumrada nabiga calayhi salaatu wasalaam sifo aada iyo aada wanaagsan ayuu inoo sheegay sifadaas waxaa weeye calayhi salaatu wasalaam qofku kolkuu miiqaadka yimaado ee uu ka xidhay yidhaha labayka allahuma cumra intaa ka horre uu isnadiifiyo oo iska jira cidiraha oo hadduu time iska googoonayo iska googooyo oo labadiisa ayuu qaadanaya maarta goob uu qaadanaya kolkaasuu qofku ku dhawaaqaya labayka allahuma cumratan odhanaya gabadha sidani soo sheegna waxa weeye iyada darkeeda xijaabkeeda laga doonaya caruurta hadday caruur halkaa socdaan iyaga waxa laba nooc wey qaar aan ku dhawaaqi karin oo niyoon karaynin iyo qaar niyoon karayn kuwa niyoon karaya waa la barayaa kuwa aan niyoon karayninna waxaa loo sheegayaa waa loo niyoonayaa si ajar badan looga heliya xasanaad badan ama kayfiyada loo cumraysto ee qofku cumraysanaya waxa weeye qofku markii uu xarmado oo u niyoodo cumrada oo labayka allahuma cumratan u yidhaahdo wuxuu bilaabaya talbiyadu bilaabaya labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له قفك وحب وضية البداس وضيع إلى أمك كتبه هدي وتبسم الدالم وحاول أكسم بعلماء إلى رحمة الله عليه قفك إنه نزته وولي بك خبيسته واسم ذي في أيام أكسم بإلى هذا والكاس قفك مسايد كأيو قال يا حرمك وحاول أكسم قفك لتهيدك تنهرك ولا